الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan walaalaha nagala soo qayb galay shirkan galabtay aanu ku soo xirayno sanadkii tagay iyo xisaab xirkii gruubka raasi casayr kulmiye iyo wax qabadkiisii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin walaalaha nagala soo qayb galay dhammaantood waxa weeyaan mahaddaas kadib waxaan rabay inaan wax yar ka iftiimiyo ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa galabta farxad weyn ii ah aan bulsho weynta ka soo jeeda gobolka Gaardafo iyo Sanaag ee beelaha Xuseen Tarareer oo gruubkan asaasayaashiisii haween buu macnaha asaaskiisu waa haweenkii beelaha Xuseen Tarareer ee gruubkan in badan maxaan ku raadayay ka soo shaqeeyay inta meesha fadhida iyo in kale oo maqan iyo in dibadaha jirta alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa mahad ilaahay waa wax ilaahay looga mahadnaqo haddaan idinka macnaha arinta aan galabta meesha isugu nimi waa sanadkii hadda la soo dhaafay iyo wixii nooga qabsoomay gruubkan khayriyadahi uu qabtay awwalaha wa aakhiraha wixii waqtiga ugu horeeyay bishii ugu horeysay wixii noo qabsoomay ilaa gabagabada hadda bish sanadku uu la dhamaaday inaan xisaabta iska xirno aanu la wadaagno walaalihii khayrka nagala soo shaqeeyay maalkooda ku bixiyay maskaxdooda ku bixiyay dal iyo dibadda rag iyo dumar oo dhaqaalaha ugu badan anagu waxa weeyaan wacyigeliyaanu iska haynay dhaqaalaha bixiyay maalkooda bixiyay mas'uuliyiinta nagu garab taagnaa ugu weyn yahay macnaha ugu mudan yahay beeldaajaheena ilaahay sharfa beeldaaje Ismaaciil beeldaaje Yaasiin madaxda maamulka ugu mudan yahay barasaabka gobolka maxamuud axmed caynab iyo inta kale oo gacan naga siistay haday bulshada qaybaheeda kala duwan haday tahay ganacsato haday tahay culimo u diin haday tahay haweenka kulliba way amaanan yihiin marka waxaan rabay inaan wax yar idinka iftiimiyo gruubkan maadaama sanadkii uu dhamaaday oo sanad cusub loo gudbaayo horta la rabona in sanadkan de wuxuu iska ahaa qabjub buu iskaga dhamaaday dadku in badan ma ay baraarugsanayn loo gudbaayo sanad la rabo in dadku indhahooda ay ku soo wada jeediyaan oo la wada baraarugo oo wax qabad fiicanna hadda inta aanu qabanay waa wax kalba muuqdaho waxa weeyaan anagu waxa aanu meeshan dadka baraynaa waa itus oo itaabsi adeeg hufan iyo amaanaanu dadka ka gadayna inaanu meeshan galabta amaanaanu isugu nimi inaanu nahay dad amaanada aanu isugu nimi waa la wada arkay wixii naloo dhiibtay meesha aanu marinay waxaanu rabnaa wixii ka dambeeyo sanadka cusub oo la balowdanay in nala arko oo sidii ay tan macnaha amaanadii iyo hufnaantii ay ku baxaanin gruubkan waxa la asaasay 2017 bishii koowaad waxaan nala markii aan bafurnay waxaan gabdho yar yar oo indhaha ka xanuunsan oo saddex oo reer wada maxreer hal qoys ka soo wada jeeda gabdhahaas ayuu gruubku u qareemay waxaan guddoonsiinay lacag dhan $2,535 waxaan lacagta ku wareejinay mas'uuliyiinta gabdhaha gacanta ku hayay uu Sheekh Xuseen hogaaminayo Cali Xuseen Cumar Saciid waxaan maxaan ku raahdaa noogu xigay abaarihii iyo biyadaankii walaalaheena ka soo guuray Sanaag oo maxaan ku raahdaa abaaru ka soo hayaamay waxaan u guddoonsiinay lacag dhan $1,525 waxaan noogu xigay shuban biyoodkii magaalada degmada Bareedo ku dhuftay iyagana waxaan guddoonsiinay lacagta aanu abaaraha u ururinay waxaan guddoonsiinay walaalaheena Sanaag ka soo jeeda مسؤول موسى أو حسين لعقت موسى أو حسين بان قدونسيني لعقت أبان شبنكا بريدة أو بن أو حنون كاسلة بردراء أنو أرورينا وحنا قدونسيني قناع سلي عبد العزيز حسين حاج علي وحنا وحي جاي داوعي لو جيستي ولكن سركال محمد علي سليمان وأنا يدنا العقير وأروريني lacagtaas oo cadadkeedu ahaa 3,300 waxaan guddoonsiinay mas'uuliyiin uu macnaha horkacayay Muuse Aw Xuseen waxaan noogu xigay lacagta cusbitaalka
عفوا وان سو معناها وحبان سو كلا هري لكن دib male lacagta cusbitaalka oo lacagta ugu weyn ay macnaha kharashka ugu weyn oo aan bixino u bixayahay oo cusbitaalka hadda la dhisay lacagtii lagu soo qiimeeyay oo ah 45498 doolar waxaan guddoonsiinay mas'uuliyiin lagu kalsoon yahay oo saddexa maxamed samantar yuusuf cabdicasiis xuseen xaaji cali iyo raaga muuse yuusuf waxaan noogu xigay wariye yuusuf yare yuusuf saalax dhucle oo aanu qalab warbaahineed naga codsaday oo maxaan ku raad deegaamada loogu shaqeeyo iyadana waxaanu u aruurinay lacag dhan 2170 doolar iyadana mas'uuliyiin deegaanka ka mid ah baan iyadana macnaha baan guddoonsiinay iyo usagi waxaa ku xiga oo groupkaas sanadkaas u qabtay macnaha kharashaashkii xaflada aanu qabanay tiimankii soo qiimeynayay markii cusbitaalka hawshiisa loo kacaayay oo aanu tolka isugu yeernay dabadeetana aanu baahiyo badan u soo bandhignay baahiyahaas oo ugu weynaa wixii ugu weynaa ay tolku ka soo dhex saareen ay ahayd deegaamada dhiban oo gaariwaaga loo yaqaano oo aan adeegyada bulshadu aan macnaha aysan ka shaqeyn adeega asaasiga ah in cusbitaalkaas loo dayactiro cusbitaalka caluule degmada caluula iyadana waxa weeye kharashaashkaas oo aan huruuse ku qabanay oo aan maxaan ku raahdaa kii ugu dambeeyay lacag wareejinta aan ku qabanay meesha la hotel gacayta iyo tiimkii baxay oo qiimeynta u baxay oo isugu jiray dhakhaatiir iyo injineeradii soo qiimeynayay lacagtii nagaga baxda kharashkaas waxay ahayd 2500 waxaan hadda sanadkan markii la groupkan la asaasayba sanduuqyada waxa lagu bilaabay lacag billa ah oo 5 doolar 10 doolar 20 doolar qof waliba tabartiisa uu kaga qayb qaadanayo walaal intisaar Siciid Saalax waa qasnajiyaha labaad ee groupka raasi casayr kulmiye ee dalka dibadiisa jooga imaaraadka jooga aniguna waxaan ahay luul dooxa joog oo dalka gudihiisa jooga oo maxaan ku raahdaa lacagta ugu badan ay soo gaarto oo walaal intisaar Siciid Saalax lacagta ay urursa xataa waxa looga baahan yahay baahidu waa dalka أنا أدي بيجوسوا بحنا يجوسوا دراء أنتي أنا كوضع قيب قاعدني وحوي أكونتات يجوسوا دعيس لعقت أنا هذا بلها بيش قدام بس اللي بيطبنات أنا ربنا إن أنا ولا لها ونحن نقول آمني أنا لو ذاك أنت سواء إن أنكسر شيء وإن لو معناها العقد بحضيوي لعقت هذا صندوقي إذا لو جود جرته انتصار يطيدا ولا بكون أفر بقول 86 دولار 2486 دولار waa lacag hadda taal waxayna soo bilaabatay bishii koowaad shaqooyin kale isbitaalkii maxaan ku raad inta aan ka soo sheekeeyay baa dhexda ka galay meesheedii bay ku hakatay hadda markaan totalkoodii wixii aan bixinay oo dhan isku daray waxay noqotay 66535 doolar waxqabadkii sanadka uu groupku soo qabtay iyo lacagihii deeqaha ahaa oo walaaluhu nagala qayb qaateen oo nagu saacideen oo maxaan ku raahdaa nagu garab siiyeen iyo meeshii ay mareen baan waxaan rabnay inaan xafladan macnaha isu ibaatinkan muhiimadiisu waxay ahayd muhiimada galabta inuu isugu nimi waxay tahay inaynu sidii hore noloo ka bartay ama aanu maxana shaqada iyaduba ay tahay horta inaan dadka barno amaanadayada inaan amaanad meeshaan amaana ku hayna amaanana waxa la cirkaa diiday oo dhulka diiday aadana dhexda ka qabsaday marka waxaan ilaah ka baryeynaa inuusan horta dad wax wad afka noo gelin oo nagu ceebayn oo nagu asturo waxaan kaleeto oo ugu baaqaynaa intan timi iyo in baaqaasi gaari doonaba inay sanadka cusub aan ka qayb nagala qayb qaataanin inaan ka sii fiicnaano oo dadka walaalaheena wixii meeshii baahiye ka jirto iskaashato ma kufta waa la yiri inaynu iskaashano gacmo wada jir bay ku gooyaan wixii la isu geeyo ay dagaanada iyo dad maxaan ku raad dadkaba ay wax u qaban karaanin marka kharashaashkii meeshaas aan soo galay ama iyo say u baxeen waa sidaas hadda iyo waxa weeyaan baraarujin iyo waxaan rabnaa sanadka cusub in dadkii lagu baraarugo wax qabad loo dhaqaaqo dadkii waxa wacyi gelin baa jirta groupkan inta ku jirta waa in yar laakiin dadkii deegaanadii baa la jiraa hadday ilaa inta ay beeluhu degaanin sanaag iyo bari waxay gobolka bari intaynu ka degno iyo gobolka gardafuuyo dhan dadkiisii waxa la rabaa meel walba inay arintan shaqadu iyo wax qabadka iyo wax maxaan ku raasan duufyada khayriyada iyo ridashadooda iyo de lagu wada baraarugsanaado laga qayb qaato
maadaama aan anagu wixii aanu qabanay aysan dadka waxba ka qarsooni aysan jirin oo wax walba meesha loogu talagalay iyo tolkii noo dhiibtay iyagu taladii meeshay macnaha martay ay maxaan arrin laga wada tashaday ay ahayd arrintayda waxaan ku raadaa waan hadalkayga intaasaan kusoo gunaanadayaa waa salaamantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u mahadsan tahay qaybta maaliyadda Soomaaliya Luul Maxamuud Yuusuf qaliyan waxaan rabay inaan idin caddeeyo gruupka naas casayr kulmiye taageero intee dhan dadka iyo dalkaba ay maxaan ku haystaa ama ka helay taageero ma helay si ma la oran karaa oo taageerayaal ma haystaa anigu waxaan aaminsanahay haa wuxuu helay taageero 95% u dhiganta kow waxaa lambarka koowaad wuxuu taageero ka helay beeldaaja ilaahay sharf lambarka labaad ganacsatada ilaahay wuxooda naftooda iyo maalkooda u barakeeyo baan taageero 100% ka helay lambarka saddexaad maamulka oo isku duuban heer gobol ilaa heer federaal uu ka helay lambarka afraad wuxuu ka helay qurbo joogta rag iyo dumar isugu qaybsan lambarka shanaad wuxuu ka helay dal joogta oo rag iyo dumar isugu qaybsan waxaa xusid mudan dad intay iyagu dhaqaalihii iyagu la bixeen ka qayb qaatay haddana dhaqaale ururin kaleeto sameeyey sida Australia waxaa noo joogta oo kaga qayb qaadatay lacag fara badan oo iyadu jeebkeeda $3,000 kana soo intay dhex martay ka soo ururisay lacag 4,000 gaarayso 7,000 kaga qayb qaadatay waxay iyadu soo dhex martay dadka Jamiila Maxamed Shabeelo ilaahay nafteeda iyo maalkeeda ha u barakeeyo iyo gabdhaha iyada la midka ah dal iyo dibad meel kasta ay joogaan waxaanu muujinaynaa in groupkaasu taageero wanaagsan helay walaalaha maxaan ku raahdaa ka qayb qaatana ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo waxoodana waxa ugu daro ugu barakeeyo gabdhaha reer Xuseen Tarareer oo dal iyo dibad jooga sida wanaagsan oo ay groupkan u taageereen gabdhaha halyeeyada halgamaya ilaahay ha noo barakeeyo ha noo xifdiyo rag iyo maxaan ku raahdaa dumarba intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu